gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdullaahi ayaa maanta degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe geeyay 12 gaari oo sida shixnada gargaar mucaawino ah kuwaas oo loogu talagalay shacabka saameynta ka soo gaartay dagaalada dalka looga xoreynayo cadawga argagixisada ah ee ka socda Hirshabeelle. Gargaarkan ayaa ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka, dhar, teendooyin iyo agabyo kale oo muhiim ah. waxaana shixnadan gargaar loogu talagalay shacabka ku nool deegaanada hoostaga Masaajid Cali Guduud iyo deegaanka Guulan ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskugu darsoomeen bulshada ku nool abaar iyo dagaalada khawaarijta. Gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdullaahi oo gaadiidkan ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Masaajid Cali Guduud ayaa sheegay in shacabkan ay kulansatay abaaro iyo maray dagaalo kula jiraan cadawga argagixisada ah ayna garab taagan yihiin. waxaan joognaa maanta degmada Masaajid Cali Guduud oo runtii aan kugula soo ganahay mudane gudoomiye Saylax Umar oo runtii aan ognahay shaqada aad halkan ka hayso haday noqoto difaaca dalka iyo haday noqoto runtii guud ahaan iyo dadka masaakiinta iyo abaaraha dalka ka jira sad uga qayb qaadanaysaan. annaga ka Sodma ahaan waxaan maanta halkan kugula wareejinaynaa 12 baabuur oo wado raashinka noocyadiisa kala duwan iyo hoy intaba kaliya ma ahan in raashinka noocyadiisa kala duwan wadaan hoyna way wadaan oo waxay wadaan dhar iyo mataqaana waxay wadaan alaab loogu talagalay in guryaha degdega laga sameesto. mudane gudoomiye soo dhawow waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo. waxaan runtii kugu amaanayaa shaqada culus oo aad ka haysid degmadan iyo inta ku hareeraysanba oo shaqo xoogan aad uga jirtid waana kugu garab siinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. ummadan marna dagaal ku jirto oo cadawga la dagaalamayso marna qacna cadawga la dagaalanne runtii abaaro ay ku haysane indhaheena ku aragna aad iyo aad u mahadsantahay ku soo gudoomiyaha degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe Saylax Umar Xaayo ayaa u mahadnaqay hay'adda Sodma. runtii waxaan ka mahad celinaynaa raashinka gargaarka oo ina soo gaarsiiyeen maadaama ay tahay xilliga aan ugu baahi badnayn maanta ay tahay oo abaar iyo colaad ay isku faanarsameen. sidaas darteed waxaa mudane gudoomiye waa ka gudoomay raashinka gargaarka oo la soo gaartay dadkan tabaalaysan oo colaadda iyo abaarta ay daashadeen. mar labaad inta aad wakiilka ka tahay oo dawladda qaranka iyo midda macal state-kana waa u hadlinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan ka guddoonaa insha Allah. maalmihii dambe hay'adda Sodma ayaa deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolada waddankeena waxa ay gaarsiisay gargaar kuwan la mid ah kuwaas oo lagu talagalay shacabka Soomaaliyeed ee la kulmaya abaaraha iyo colaadaha. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka.